wabarakaatu. Ciid mubaarak meel walbaad joogtaan, kulanti wacan oo wanaagsan. Waa mar kale iyo is-arag aynu kaga hadli doona caymiska iyo waxyaalihii khuseeya. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo SR22 oo qofka looga baahdo si uu u soo deysto laysankiisa laga xiray. Laysanka qofka waxaa laga xiri karaa dhowr waxyaalood. Guud ahaan unse waxaa weeye haddii qofka state-ku uu ku qabto isagoo bilaa caymis inuu gaari wado. Mararka qaar waxaa dhici karta oo ay qofka lagu ogaadaa inuu bilaa caymis yahay in warqad loo diro. State-yada qaarkood ayaa shuruucdooda waxay tahay in intay warqad qofka u diraan yiraahdaan soo cadee caymis inaad ku jirto. Marka haddii ay qofka sinaba lagu ogaado inuu bilaa caymis yahay, laysanka ayay ka xiraan, kadibna waxay ku xukumaan waxa la yiraahdo SR22 oo loo yaqaan financial responsibility. qofka intee leeg ayuu haysanaya waxa loo yaqaan SR22. State-yada badidooda shuruucdeedu waxaa weeye qofku inta badan waa 3 sannadood ayuu SR22 haysanayaa. Maalinta laysanka loo soo daayo lagu xukumo 3 sannadood ayuu ka tirsanayaa. halka qofkii lagu qabtay isagoo cabsan SR22ga uu ka tirsanaya 5 sannadood maalinta SR22ga systemkiisa loo geliyay. qofku markaa SR22 sidee ayuu ku heli karaa? SR22 waxaad ku heli kartaa agenciyada caymiska iibiya sida anigoo kale ayaad u tegaysaa markaa way weydiinaysaa inay SR22 hayaan. insurance-yada badidooda SR22 ma hayaan, qaar gooni ayaa haya. marka nasiib wanaag anigu waxaan ahay dadka SR22 waan u geliyaa. qasab maaha qofku inuu gaari haysto si laysankiisa uu u soo deysto oo markaa SR22 intuu loo geliyo uu soo deysto. caadiyan anigu waxaan aad u arkaa dadka run ahaantii taraaglayaasha ah ee aad ugu dhacdaa dad badanaa intaan arkay. sababtan waxaa weeye taraaglayaashu inta badan jidka ayay saaran yihiin, gawaadhidooda yaryarna waxay dhigaan meelaha baarkinka ah oo trackstobyada ayay dhigaan oo kaga tagaan, iyadoo mararka qaar ay dhici karto bil iyo wax lamid ay ka maqan yihiin, halka mararka qaarna ayba dhici karto inayna waxanba aqoon u lahayn ama ay ilaawaan inay lacagtii caymiska bixiyaan oo markaa intii caymisku ka kansalmo ayagoo rar la ordaya ayaa waxaa lagu wargeliyaa inuu laysankoodu uu xidhmay, SR22 ay u baahan yihiin. marka qofka SR22 haddii loo geliyo waxaa dhacaya qiimihiisii caymisku runaantii kor ayuu u kacaa, waana wax ka muuqan doona laysankiisa oo dee marka la eego waxaa laysankiisa ku jira SR22 waa la arki doonaa. xoogaa dhaawac weyn ayay u keensatahay oo xagga maaragtay qiimaha weliba gaar ahaan taraaglayaasha. marka dadka aad iyo aad ayaan runaantii ugala talin lahaa inay caymiskooda ay una kala go'in oo ay mar walba hubiyaan inuu caymiska una ka kala go'in, weliba gaar ahaan taraaglayaasha, waayo dee waa laysankooda way ku shaqaystaan, lacag fara badanna way ku sameeyaan. saa daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay ilaashadaan laysankooda. mar walba waxaan jecelnahay inaanu dadka Soomaaliyeed la wadaagno wixii maaragtay caymis ku saabsan. share gareeya videogan insha Allah tacaala. qofkii markaa u baahan SR22na noo soo booqan karaa xafiiskayaga. laysan waxaan u leenahay inaanu dadka SR22 u gelino state-kan Ohio ah iyo weliba Minnesota, gobolka Minnesota. daawasho wacan oo wanaagsan insha Allah. asxaabtaada la wadaag. aad iyo aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.